Michael Carrick oo ammaan ugu qubeeyay Bruno Fernandes kadib guushii Tottenham. Tababaraha Manchester United Michael Carrick ayaa si weyn u amaanay kabtanka kooxda Bruno Fernandes kadib markii uu door muuqda ka qaatay guushii 2-0 ay ka gaareen Tottenham. Carrick ayaa sheegay in Fernandes uu yahay ciyaaryahan si joogto ah ugu dhex muuqda waqtiyada muhiimka ah ee ciyaarta. Bruno wuxuu ahaa mid joogteyn fiican, mar walba wuxuu ku lug leeyahay daqiiqadaha waaweyn ayuu yiri Carrick. Wuxuu intaas ku daray, wuxuu si dhab ah u daneeyaa kooxda iyo guushooda. wuxuu ka ciyaari karaa boosas kala duwan wuxuuna noo sameyn karaa farqi weyn. Fernandes ayaa haatan gaaray 6 gool iyo 12 caawin kadib 22 kulan oo Premier League ah xil ciyaareedkan 2025-2026 isagoo sii xoojinaya doorkiisa hogaamineed ee Old Trafford. Manchester United ayaa haatan ku jirta qaab ciyaareed wanaagsan iyagoo raadinaya inay sii wadaan guulahooda si ay ugu sii dhawaadaan nafarta sare ee horyaalka. dhinaca kale Arsenal oo garaacday Sunderland god dheerna ku riday rajadii City ee horyaalka. Arsenal ayaa guul muhiim ah ka gaartay Sunderland kadib markii ay 3-0 ku garaaceen kulan ka tirsan horyaalka Premier League. Gunners ayaa si buuxda u maamushay ciyaarta iyadoo goolasha ay kala dhaliyeen Martin Zubimendi iyo 2 gool oo raaciyay Victor Gyökeres. Guushan ayaa u suurtagelisay Arsenal inay hogaanka horyaalka ku dheereystaan 9 dhibcood. inkastoo ay hal kulan ka badan yihiin kooxda ay sida weyn u xafiiltamaan ee Manchester City. City ayaa kulankooda xiga u safri doona Anfield si ay ula ciyaaraan Liverpool, kulan si weyn u saameyn kara tartanka horyaalka. Arsenal ayaa muujinaysa kalsooni iyo joogteen iyadoo si cad u dirtay fariin ku socota kooxaha kula tartamaya hanashada Premier League xil ciyaareedkan. ugu dambeyn, Cole Palmer oo dhigay 2 rikoor oo cusub kadib 3 leedii Wolves. Xidiga reer England ee Cole Palmer ayaa mar kale taariikh sameeyay kadib markii uu 3 gool ka dhaliyay kulankii ay Chelsea la ciyaartay Wolves horyaalka Premier League. Palmer ayaa 3 gool dhaliyay qaybtii hore ee ciyaarta isagoo 2 ka mid ah ku dhaliyay rigoore halka kan saddexaad uu ka faa'iideystay kubad uu ka soo celiyay daafac bidix ee Chelsea Marco Cucurella. sida ay sheegtay Squawka, tani waxay ahayd hat-trickii afraad ee Premier League tan iyo markii uu Chelsea ku soo biiray xagaagii 2023 taasoo ka dhigaysa ciyaaryahanka ugu 3 leed badan taariikhda Chelsea ee tartankan. sidoo kale xogta Opta ayaa muujisay in Palmer uu noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay abid ee 3 jeer dhaliya hat-trick qaybta hore kulan Premier League ah, rikoor aan hore loo arag. Palmer ayaa sii xoojinaya doorkiisa hogaamineed isagoo noqday mid ka mid ah xidigaha ugu saameynta badan Premier League xil ciyaareedkan. fiid wanaagsan saaxiibayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warbixintii koobneed ee nagu hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay ay ilaabin inaad muuqaalka like saarto sidoo kalena sii share gareyso. haddii aad nagu cusubtaa nagu soo biiro ka mid noqo asxaabta nagu xiran. mahadsanid.